أبو عبسل وياري أنا كل يوم برانين حلت بكرينا أشوفه أنا أصلا أشوفينا أمرينا إيمانا أنا أصلا saaxiibayaal halkan waa xamarcada TV muuqaal kale ayaan idin heenahay mararka qaarkood dhacdooyinka dhaca waxay kugu reebaysaa mahadooyin iyo weliba xanuun iyo go'aasho maadaama dadka qaarka yihiin dad la nool walwal walaac iyo xanuun intuba haddaba Mrs Wall oo ah tiktoker caanka ah tiktok iyo social media inteeda kale dhawaana ka soo socdaashay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Muqdisho soo gaartay ayaa waxaan idin baahinay in habeen hore laga afduubtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya haddaba dad badan ayaa isweydiinaya maxaa ka soo kordhay afduubka loo geystay gabadha Mrs Wall waxa ay si qarsoodi ah ku heshay mobile kadibna waxa iska soo duubtay video iyadoo oynaysa Mrs Wall waxa ay sheegtay in ay ku jirto qol waliba iyadoo kali ah waxa ay hoosta ka xariiqday inaysan u baranin in qol cidla ah ay kaligeeda ku jirto isla markaana waxa ay dalbatay in la soo badbaadiyo waxa ay tilmaamtay in meel ay joogto aysan garanaynin iyadoo waliba ku calaacalaysa hal ay soo badbaadiyo iyo hadallo kale oo markaasi danqasho u badan oo qofka markaasi aadka u daawanaya muuqaalka noocan oo kale dareemaya naxariis aad u fara badan Mrs Wall iyo sheekadeeda waxa ay noqotay mid ay u kala qaybsamaan dadka TikTok caanka ah iyagoo waliba dhahaya qaarkooda Mrs Wall way nagu ciyaaraysaa sheekadan waa baranki halka kuwa kalena ay tilmaamayaan in waxaan oo kale aysan kaftan ahayn isla markaana aan lagu kaftami karin oo Mrs Wall hadalka ay sheegayso waa run oo waa la afduubtay haddaba sheekadaas baraha bulshada aad ay u qabsatay inkastoo Mrs Wall iyadoo oynaysa muuqaal ay soo duubto oo dhahaysa hal ay soo badbaadiyo haddaba reerka Mrs Wall weli ilaa iyo hadda kama aysan hadlin afduubka baraha bulshada lagu baahiyay ku aadan in Mrs Wall la afduubtay laakiin waxa baraha bulshada sheekadan aad ugu hadalhaya saaxiibada ugu dhow Mrs Wall waa gabar TikTok caanka ah waxaana ku xiran ilaa iyo 600 kun oo qof ayaa ku xiran oo taageerayaasheeda ka mid ahay qof walibana waxa uu dareemayaa xanuun maadaama Mrs Wall ayaa 600 kun oo qof ku madadaalin jirtay muuqaalada quruxda badan ee markaasi ay soo dhigi jirtay inkastoo dadka badankii ay muuqaaladaasi siyaabo kala duwan uga hadlaan haddana dad badan oo waxaa jira aad u danay jiray isla markaana ku tixnaa muuqaalada isdaba joogga ah oo Mrs Wall akoonka ay ku leedahay TikTok soo gelin jirtay fadhigeeda waxa uu ahaan jiray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya laakiin hadda toos waxay ugu soo wareegtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya laakiin habeen ka hor ay ahayd markii ay xaflad ka qayb gashay kadibna halkaasi lagu afduubtay wararka xamarcada TV helaya ayaa sheegaya in Mrs Wall afduubkeeda ay ku lug leedahay isla markaana ay ka dambeysay Queen Canab oo ku sugan dalka Kenya isla markaana ah gabadha dhawaan muuqaalkeeda baraha bulshada aad u qabsaday haddaba waxaana loo adeegsaday Habi Ahmed oo maalmihii ugu dambeeyay ay wada socdeen Mrs Wall inkastoo sheekadaasi ay tahay mid ay aad ula yaabaan guud ahaan dadka ku tixan baraha bulshada Queen Canab ujeedkeeda ah inay ka aarsato Mrs Wall oo ah gabadha ay ugu tuhunsan tahay in muuqaalka qaawan ay ka faafisay maadaama ay hal meel ku wada noolaayeen isla markaana ay saaxiibo dhow ahaayeen ayaa afduubkan ku lug leh inkastoo xaqiiqada uu naga ogyahay Allah subxaanahu wa ta'ala dadka badankii ayaa sheekadan waxay u tahay mid markaasi baranki maadaama Mrs Wall lagu bartay kaftan iyo waliba inay dadka madadaaliso qaarkood waxay u fahmeen inay ku kaftamayso laakiin kuwa kale ayaa tilmaamaya in afduub uusan kaftan galin isla markaana ay halis ku jirto naf bini'aadan u baahan in la soo badbaadiyo danqashada iyo xanuunka waa iska halkeedii laakiin waalidka Mrs Wall ayaa hadda dareemaya xanuun aad u fara badan sheekadan haddii ay tahay baranki Mrs Wall ay ku qaldan tahay sababtu waxa weeyaan waalidka inta ka go'ay iyadu ma dareemi karto haddaba ilinta ka soo daadanaysa ayaa sheekadan run ka dhigaysa maadaama iyadu ay sheegtay in la afduubto isla markaana lagu xareeyay qol cidla ah oo waliba aysan u baranin in qol ay kaligeeda ku noolaato haddaba saaxiibayaal dad badan oo ku tixan xamarcada TV ayaa aad ugu walaacsan xaaladda nololeed ee Mrs Wall inkastoo Facebook ciwaan Mrs Wall ku qoran tahay la soo dhigay Soomaaliya waa noolahay
waa barankii. Haddaba dadka badankii sheekadan way ku adag tahay inay fahmaan, laakiin kuwa kale oo caqliga u saaxiibka ayaa sheekadan ka biyadiiday inay sax tahay iyo weliba in ay qalad tahayba. Haddaba saaxiibayaal, markasta waa muhiim dhacdooyinka cajiibka leh arrimahan quseeya inaan idiin soo baahino anagoo markasta ku dadaalayna sidii markaasi qofkaasi aynu garab u sii lahayn. Haddaba saaxiibayaal, kilibka yar ee Miswada oonayso nala daawada. Waa rajeynayaa inaad naxariis haddii ay kugu jirto aad dareemi doontid xaaladda gabadhan ee hadda lagu afduubtay gudaha magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Waa cabsano yaare. dadka live-ka kuugu jiran oo comment kusoo qoraya kuwa Ani kaliya ma baranin xilli dambe guriga joogo. Anaa sina joogeen umaleynaayo macnaha ana isdhaa habsana. Давай. Да? Я عشان يا إلهي عشان يا قفل مجوته فعمان قرنه أنت أقدر تستحق متاعي قرأ كتب لك يستحق كتب عم تعالي давай да давай да давай давай ها أنا عشرة مكولة تاعي كوشة يوم بعمل وزي والله تبقى إيه شبتي أنا حكي بقى والله أنا بقيلين دي ما أقبليها وعرسنا يا إلهي عرسنا يا قفل مجوته شكرا لك وقيلنا عطوك قف متشوفه قف متشوفه الباب كفري قفنا متشوفه قف عمام قرنه أنت أقدر تستحق متاعي قرأ كتب لك يستحق كتب عم تعالي كتب بالسي أنا فرق بقى تعمل مش واحد فروع محا أنا محا كعبسنا نفتح المريكو إيه يغفيري أنا عبسنا Waa cabsano yaare. dadka live-ka kuugu jiran oo comment kusoo qoraya kuwa Ani kaliya ma baranin xilli dambe guriga joogo. Anaa sina joogeen umaleynaayo macnaha ana isdhaa habsana.
عايز كلك عاوي أحمد xamarada TV naga daawanaysan saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtiin subscribe dhaha gambaleelka furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan markaasi aan soo dhigno haddii aad horey noola joogteen madaxaad inoo saaran tihiin dhaliil amaan bogaadin tale iyo tusaale haddii aad inoo haysaana qaybta commentiga inoogu reeb waan idin aqrin doonaa waa nabadoonka youtuberada Soomaaliyeed xaaji duco leh muuqaalkan kiisiga intaynu ku kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo